Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta kusoo dhawaada Somfit Channel mar kale. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago body transformation-ka aan sameeyey sidii aan ahaa markaan gym-ka bilaabayay iyo hadda aan muddo ku guda jiro. Isbeddelka u dhexeeyay maxaa isbeddelay caqabadihii aan la kulmay waxaas ayaan rabaa maanta inaan idinla wadaago. Waxaan jeclahay in asxaab badan oo adinkiidan ka mid ay ka faa'iideysan doonaan. Sidoo kale asxaabta cusub ee nagu soo biirtay channel-ka aad ayaad u mahadsantihiin. Thank you very much akheerta. Okay, aan guda galno videogan. haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe-ta nagu caawi gambaleelka daaro si aad lagu soo wargeliyo mar walba aan video soo gelino. waa mahadsan tahay nala soco. asxaabta sawirkan aad u jeedaan waa aniga markii inta aan gym-ka bilaabin ka hor. sawirkan aad u jeedaan waxaan ahaa 49 kiilo 50 kiilo meelahaas caato ayaan ahaa. sidoo kale kan aad u jeediin waa intaan gym-ka bilaabin ka hor. markaan gym-ka bilaabay yani qof aad caato u ayaan ahaa oo mar walba caatada iyo lagu caayo. waad ogtahay Soomaalideena caatada iyo waa la isku eedeeyaa. marka intaan bilaabin gym-ka sidan ayaan ahaa sida u jeediin asxaabta. marka waa ka waxa waaye wax walba waad bedeli kartaa. markana sawirkaad u jeedaan waa markii aan bilaabay gym-ka I think 2015 ahayd. markaan waxaan dhiganayay 3 bil camal miya 58 kiilo noqday. markaan waxa 3 bil waxay ugu korortay 8 kiilo. kaliya waan joogtay jiray. waa aragtay markii qofka caata ee gym-ka u socdo dadku waxay leeyihiin adigaaba caata gym maxaa ka tagay inaad dhimato ma aragtaa. marka waxaa idin dhihi lahaa dhageysanina. sawirkan kale aad u jeediin sidoo kale waxa waaye isagana xoogaa markaan dhiganayay adiga 60 kiilo meelahaas ayaan ahaa. marka mar walbo aan sii sameeyo waxba igu sii ziyaadayay. xaqiiqdana waxay tahay sawiradan aad u jeediin waxba kama garanaynin diet-ka iyo waxyaabahaas kaliya waan iska samayn jiray. sawirkan aad u jeedaanna waa markii adiga aan sanad waday oo kale I think kan inuu ahaa 2016 dhamaadkeeda meelaha inuu ahaa ayaan rajaynayaa. in badan sawiro badan iyo waxaas iskama aan qaadi jirin. caqabadaha ugu badan waxay ahayd horta diet-ka iyo waxaas waxba kama garanayn. cuntadeena Soomaaliga canjeerada bariiska cambuulada iska garaaci jiray birtana waa qaadi jiray. adiga sawirkan markaan waxa ahaa 66 miya meelahaas ayaan gaaray. laakiin xoogaa waxaad moodaa in fat yar igu jiray markii loo barbar dhigo hadda sidaan ahay. sawirkan xoogaa fat ayaa igu jiray. sidoo kale haddana xoogaa shape-kaygu iska wanaagsanaa. waxaad arkaysaa yani mar walba adiga hard work aad samaysid aad dadaashid yani inuu result-igu uu imaanayo. marka dadka qaar waxay dhahayaan Soomaaliya laguma dhismi karo diet ma haysto sidaa darteed gym ma samayn karo. ma aha sidaa. yani diet-ku waa muhiim waan ognahay laakiin mar walba dadaal. hadda sawirkan aad u jeedid waa markii hadda aan Soomaaliya kasoo tagayay. waxa waaye 28kii dabiiqadeedii waa sawirkan. waxaan ahaa 72 kiilo inkastoo laakiin much fat oo igu jiray dhanka caloosha iyo keliyaha xoogaa fat oo iga galay. laakiin haddana xoogaa shape-kayga markaa fiiriso qof gym qaada waan u ekaa xoogaa shoulderska gacmaha they looked good chest-iga. marka sawirkan aad u jeedid xitaa waxba diet-ka ma garanaynin. aniga diet-ka waxaan bartay kaliya markii aan Soomaaliya kasoo tagay oo hadda Turkiga ayaan joogaa. Turkiga ayaan markaan imaaday ayaan bartay. sidoo kale waxaad ogaataan asxaabta yani mar walba body building-ka ma ahan yani result-iga mar walba joogta ma ahan. horta qofka markuu ku cusub yahay gym-ka progress uu sameynaya wuxuu doona ha qaado suu rabo ha u qaado progress uu sameynaya. jirkiisa wuu kobcaya waayo jirkiisa lama qabsan yani cadaadiskan ku imaanaya. sidaa darteed jirkiisu isku difaaco muruqii wax buu dhisaya. laakiin bacdama jirkaaga uu lasii qabsado cadaadiskan iyo tensionkan la saaraya uu lasii qabsado growth wuu joogsanaya ama progresska sidii hore uu ahaa ma ahaanayo. marka waxaad arkaysaa marmarka qaar 6 months even 1 year oo wax gooniya kugu kordhinaya arkaysaa. marka markii adiga aan natural aad tahay qofka naturally markuu sameynayo waxyaabo badan inuu wax ka bedelaa loo baahan yahay diet-ki markii dambe aad wax ka bedeshid qofka markuu adiga drugs iyo waxa isticmaalayo wax walba sameeyo yani korkiisa uu sii weynaanaya. laakiin haddii aad natural tahay even 2 kiilo haddii ama 3 kiilo ama 5 kiilo haddii aad isku darto sanadkii waxaa waaye progress aad u weyn waaye. marka asxaabta qaar waxaan aragnaa gym-ku hadda imaaday ama wuu ku cusub yahay 6 bilood oo kale uu qaadayaa si fiican wax iskagama jeedo marka wuu niyad jabaya. marka asxaabta ma raba inaad ka niyad jabtiin gym-ka. progresska slow waaye mar walba isku day yani inaad wax ka bedesho. isku day weight-ka aad qaadi jirtay inaad yara kordhisid. mar walbana waxaad lahaataa jadwal yani gym-ka markaad imaanaysid inaad goal leedahay oo
program aad ku socotid inaad iska imaato oo iska baxdo oo maanta wixii kugu soo dhaca niyadaada iska samayso xoogaa markaas progresskaaga ma fiicanayo inaad waxaa fiican inaad exercisyada waaweyn samey record ka samey tusaale taleefankaaga ku note gareyso maanta intaasoo kiilo ayaan qaaday intaasoo reps aan ka sameeyey ama intaasoo tiraan ka sameeyey wiiga kale tiradaas wax inaad ku darto isku day ama waxaad isku daydaayoo kale xitaa inaad weigtkii wax yar ku kordhiso hadba marka jirkaaga bacdama oo uu arko yacni culeys markaas uu arki jirin markaas tensionkan cusub si ula qabsado growth ayuu sameynaya marka mar walba wax ka bedel hadda aniga waxaan idin tusayaa sawiro kale asxaabta sawirkan aad u jeedaan waxa waaye markii aan Turkiga imaaday kadib waaye markaan halkan imaaday waxaan isku dayay dietka inaan fahmo wax fiican ayaan dietka ka bartay inkastoo mar walba oo aqoonta in la sii ziyaadiyo loo baahan yahay markan waxaan isku dayay markii aan imaanayo xogaa inkastoo horta gap galay adiga 4 bil camal maan qaadin gymka kadib aan ku laabtay kadib waxaan isku dayay marka fatka yara saarnaa inaan iska jaro sidaad u jeedin sawirkan xogaa xididadeeda iyo murqaha banaanka imaadeen markaan xogaa fatkii saarnaa ayaan iska dajiyay markii loo barbar dhigo sawirkii oo hadda idin tusayo kanoo ahaa markii aan soo baxaya ahaa markii la isku fiiriyo sawiradan dambe ayaa at the same time waxaan isku dayay yacni anigoo murqahayga iga baabi'in yacni muscle retention anigoo sameeyey haddana inaan yacni fatkii iska dhimay marka muhiimadda ugu weyneed aan sameeyey inkastoo kiilo ahaan hadda the same aan ahay waxay ahayd waxaan xooga saaray yacni inaan like murqahayga soo muujiyo oo fat ka saaran aan ka jaro marka waxaad ogaataan asxaabta mar walbo growthka ma noqonayo consistency yacni mararka qaar oo waxaa jiro aadan result aadan arkaynin marka ha niyad jabin asxaabta marka asxaabta haddii aad ka hesheen videogan ama aad nagu cusubtihi kusoo biir channelkeena subscribe like haddii aad jeclaan lahaydeen wax aad rabtiin inaad aragtaan ama inaan ka hadlo jeclaan lahaydeen waxaan jeclaan lahaa comment sectionka inaad iigu soo qortaan channelkan adinka ayaa iskale asxaabta waxaan rabaa inaan kala faa'iidaysano wax walba fikradiina comment sectionka igula soo wadaaga marka waa ka asxaabta marnaba yaa la quusanin yacni hore aan u soconno sidoo kale gymka keliya maahan noloshaada dhan walba ha ka quusanin hadday waxbarasho ahaan lahayd hadday shaqo ahaan lahayd mar walba waxaa isku daydaa yacni noloshaada dhan walba inaad wanaajisid marka Somfit channel astaanteenu mar walba waxaa weeyaan calool iyo caato dambe ma ogolin aniga hadda inkastoo aan progress fiican soo sameeyey sidii aan ku bilaabay sawiradii markaad soo aragtay markii loo fiiriyo laakiin weli goolkayga maan gaarin mar walba waxaan hore ugu sii soconaya in physique goolkayga aan gaaro ama qaabkaan rabay inaan noqdo marka asxaabta waan isla mari doonaa safarkan marka haddii aad ku cusub tahay nagu soo biir asxaabta insha allah waan ismaqli doonaa waxaad jeclaan lahaydeen fiidiyoyada dambe inaad ku aragtaan comment sectionka igu soo qora thank you very much bye bye